بسم الله الرحمن الرحيم شروينها وذا تشيغا إسعفنتا بيلوين تمدلود ورمرتيات مقدشو سدح إلى لح بشا أغسطس لبكن يلواتن بيلوين تمدلود أيا شر وذا تشي يسعفنا كويا لتي مقالة مقدشو سدح دي إلى لح دي بشا أغسطس لبكن يلواتن شركان أو لغو قبتي مولع على النور ayaa daba socday shirka horeeyay oo lagu qabtay Muqdisho 23 bishii 2022 kaasoo lagu go'aamiyay qabashada shirweynaha beesha isugu timaado oo ay hogaaminayaan duubabka beesha shirka wada tashiga iscafinta waxaa ka soo qayb galay ergo gaaraysa ilaa 5,000 oo qof afartii maalmood u socday oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada oo u hogaaminayaan duubabka culumaa diinka uqaasha siyaasiyiinta ganacsatada aqoon-yahanada saraakiisha ciidamada dhalinyarada haweenka iyo qurba joogta beesha mudullood waxaa sidoo kale shirka lagu casuumay marti sharaf matalaysa beelaha Soomaaliyeed dood qoto dheer tusaaleyn mugle dib u milicsi taariikheed oo hufan su'aalo iyo jawaabo waafi ah oo lagu soo gudbiyay wacdi hadal jeedin iyo murti ka soo maaxatay rag iyo dumarba shirku wuxuu soo saaray war murtiyeedka ka kooban qodobada soo socda arrimaha amniga beelweynta mudullood waxay ka dalbaysaa dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo amisom in si degdeg ah looga xoreeyo deegaanada beesha oo ay muddo dheer ku habsadeen nabadiidka beesha mudullood waxay si mug leh gacan uga geysanaysaa xoreynta deegaanadeeda iyo in la gaarsiiyo maamul dawladeed shirku wuxuu ka digayaa in la soo geliyo dalka ciidamo shisheeye oo aan sharciyad haysan kana tirsanayn amisom beesha oo caan ku ah taariikhna ku leh dhisidda taageeridda la shaqaynta iyo garabsiinta dawladnimada ayaa xilligan lagu jiro waxay cod dheer ku sheegaysaa jiritaanka tacadiyo iyo xadgudubyo culus oo ka jira guud ahaan hay'adaha dawladda dhexdooda gaar ahaanna hay'adaha amniga iyo garsoorka waxayna ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto xaaladahaas taagan arrimaha siyaasadda shirka wada tashiga wuxuu soo dhaweynayaa go'aanka baarlamaanka oo qeexaya in gobolka Banaadir ku yeesho 13 xubnood oo matalaad ah aqalka sare taasoo lagu dhaqan gelinayo inay ka mid noqdaan baarlamaanka 11aad ee 2021 waxaan ka codsanaynaa in loo dhameystiro wixii ka dhiman oo habraac sharci ah waxayna beesha u mahad celinaysaa dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo cid kasta oo gacan ka geysatay arrinkaas beelweynta mudullood waxay u soo jeedinaysaa hay'adaha dawladda ay khusayso in ay dardar geliyaan howlaha la xiriira dhameystirka maqaamka caasimadda si waafaqsan soo jeedintii labada guddi ee arrimaha dastuurka ee baarlamaanka sagaalaad kaasoo dhigayay in Muqdisho tahay caasimadda dalka oo ah dawlad goboleed matalaad ku leh labada aqal ee baarlamaanka dabagalka hawshan waxaa u xil saaran golaha horumarinta danaha mudullood beesha mudullood waxay gogol u fidinaysaa bulshada Soomaaliyeed si ay uga wada tashadaan dadejinta dhismaha dawlad goboleedka gobolka Banaadir dabagalka fulinta goglahaas wada tashiga ah wuxuu shirka u xil saaray duubabka iyo golaha horumarinta danaha mudullood beesha mudullood waxay ugu baaqaysaa dawladda federaalka in doorashooyinka qaran ee 2020 ay noqdaan wadar ogol suuragal ah oo ku qabsooma waqtigooda beesha waxay ka digaysaa in muddo kororsi xilliga dawladnimada uu waddanka gelin karo qalalaasa siyaasadeed iyo mid dastuur taasoo dhaawacaysa sharciyadda dawladnimada Soomaaliya shirweynuhu wuxuu ka dalbayaa dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasaddu in ay dhowraan kuna dhaqmaan ilaaliyaanna dastuurka iyo shuruucda dalka
una turaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladnimadiisa arrimaha bulshada shirku wuxuu soo dhaweynayaa isla markaasna xoojinayaa wadajirka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shirku wuxuu isku raacay in la dhiso golaha horumarinta danaha beelweynta Mudulood shirku wuxuu ku baaqayaa in si shuruud la'aan ah loo joojiyo colaadaha ka jira deegaanada ay degto beesha si dhab ahna loo xalliyo wixii sababay colaadahaas si guudna loo joojiyo colaadaha ka jira Soomaaliya shirku wuxuu go'aamiyay in la sameeyo dib u heshiisiin sal ballaaran lagana sameeyo dhammaan deegaanada ay degto beelweynta Mudulood si loo gaaro iscafin iyo iskaashi guud waxayna ugu baaqaysaa beelaha Hawiye gogol dib u heshiisiineed sidoo kale waxay ku baaqaysaa dib u heshiisiin Soomaaliyeed oo dhab ah ayadoo ay gogasha dib u heshiisiinta ay u fidinayso beelaha Soomaaliyeed maadaama ay tahay gogashii dalka shirku wuxuu soo dhaweynayaa sahminta garoonka cusub ee diyaaradaha ee deegaanka Hawaii Garabcad wuxuuna rajaynayaa in dhaqso loo dhagax dhigo beesha Mudulood waxay bogaadinaysaa dhammaan shirarka nabadeed ay gaareen beelaha Soomaaliyeed sidoo kale waxay soo dhaweynaysaa wada hadallada dib ugu bilowday Soomaaliya iyo Somaliland gunaanad iyo mahadnaq beeshu waxay mahad ballaaran u soo jeedinaysaa dhammaan intii gacan ka geysatay qabsoomidda shirweynaha wada tashiga ee beelweynta Mudulood beeshu waxay u mahad celinaysaa duubabka dhaqanka guddiga qabanqaabada iyo culumaa u diinka si gaar ahna mawlaca macallin nuur oo suurto galiyay qabsoomidda shirkan beeshu waxay si gaar ah ugu mahad celinaysaa qurba joogta iyo ganacsatada Mudulood oo suuro galiyay qabsoomidda shirka wada tashiga ugu dambeyn waxa ay beesha u mahad celinaysaa beesha caalamka oo qayb weyn ka qaadatay gacansiinta ummadda Soomaaliyeed waqtiyada adka ay soo martay waxayna ku bogaadinaysaa inay sii joogteeyaan gacansiinta ummadda Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq